nolosha aadanaha ayaaba waxa ay ku salaysan tahay imtixaan joogto ah. Had iyo jeer imtixaankaasi ayaa ahi mid noloshaada loogu talagalay in aad ka gudubto. Haddii aad awoodaad u leedahay ama adkaysi iyo samir aad u leedahay, waxaad ka gudbi kartaa ama aad ku guuleysani kartaa imtixaanka dunida. Nasro waa gabar ku salaysan eedaab, akhlaaq iyo naxariis. Sidoo kale eebana uu siiyey qurux iyo jacaylba. Nasro ayaaba magaca ka salaysan uu yahay mid jacayl ka tarjumaya. Maxamed iyo Yuusuf iyo Nasra Cabdi ayaa ugu dambeyn isku guursaday xaafadda Xamarta ee magaalada Burco. Waa dadka maanta aan jeclahay inaan ku soo qaato sheekada jacaylka ama qisooyinkeena jacaylka. Maxamed Yuusuf iyo Nasra Cabdi ayaa ugu dambeyn isku guursaday xaafadda Xamarta ee magaalada Burco kadib markii ay Nasro dhameysatay sanad iyo 6 bilood oo xadhig ahi oo ay ku qaadatay xabsiga dhexe ee Burco, halka Maxamedna uu ku soo laabtay ama ka soo laabtay safar uu 3 sano ahi oo badiya bari leh, kaasi oo ugu sugnaa dalalka Afrika ee Yurub ay ka mid yihiin. Nasra ayaa xadhiga ku muteysatay kadib markii eedadeeda aabaheeda la dhalatay ay ka xaday lacag dhan $8,000, taasi oo ay dhammaanteeda ugu deeqday Maxamed Yuusuf oo gacanta ugu jiray magafi ku sugnaa duleedka magaalada Masraarta ee Liibiya. Maxamed oo hore nolol dayacan ugula kulmay magaalada Burco kadib markii isagoo 12 sano jir ahi ay isfureen ama ay kala tageen hooyadii iyo aabihii, ayaa markii ay magafiyaashu dul dhigeen xoriyadiisu inuu ku bixiyo ama xoriyadiisu inuu ku asiibo lacag dhan $5,000. Qofkii ugu dhawaa ee uu markaasi maskaxdiisu ka soo dhacayo Maxamed inuu lacagtaani u sheego waxay noqotay Nasra Cabdi oo ah ardayad sanadka 2 ka barata dugsiga Cabdinuuri ee Burco, taasi iyada lafteeda la duruuf ahi arrinka Maxamed oo ooyaya ayaa habeennimadii Arbacada bishii Abriil ee 2014 soo wacay Nasra oo markaasi dhameysay dhaqitaanka weelkii lagu casheeyay, waxaanu ugu waramay xaalkiisa inkastoo aanan suuragal u ahayn ama u awoodin inuu dhammaan u sheego dareenkiisa iyo duruuftiisa. Lacagta uu ku hadlayo oo ku yareed awgeeda, haddana waxa ugu muhiimsanaa in laga rabo lacag dhan $5,000 isla markaana aanun haynin cid kale oo ka bixisa ama aanu garanaynin. Nasra ayaa weydiisay nambarka ay si joogto ah uga heli karto Maxamed wuu u sheegay, waxaanu ku ballameen habeen dambe waqtigani oo kale inay soo wada hadlaan. Nasra habeenkii ma aysan xanin, waxay ku fikiraysay meesha ay ka heli lahayd lacagta ku xidhan nolosha Maxamed. Nasra wax lacag ahi oo haysa ma aysan jirin haba yaraatee, oo 3 maalmood ee ugu dambeeyay waxa ay u lugeynaysay dugsiga kadib markii loo waayay lacag ay bas ku raacdo. Ugu dambeyn waxay xasuusatay inay lacag aanun qadarkeeda ama qiimaheeda aan garanaynin ay ku aragtay qasnada dukaanka eedadeeda oo ku yaala goobta loo yaqaano Sakatal Yuhuud ee magaalada Burco. Subaxnimadii habeenkaasi waxay u sheegtay eedadeeda in dugsiga ay ka baaqan doonto maadaama la fasaxay fasalkeedii, iyadoo oo ujeedkeedu yahay sidii ay u tagi lahayd dukaanka ay lacagtu taalo. Nasro waxay u qaaday quraacdii Cabdicali oo habeenkii ilaalinayay dukaanka, waxayna fursad yar ka heshay inay furto qasnadii lacagta ay ku jirtay gacanta. Markii ay gelisay, waxay ka soo bixisay wixii ku jiray oo idil, si degdeg ahina ay soo baxday. Xataa Cabdi Macsalaamo may dhihin, iyada oo aanan ka fikirin maxaa kaaga imaani doona lacagtan aad qaaday, ayay Maxamed la hadashay waqti ilaa 12 saacadood ka horeeyay kii ay ballamsanayeen, waxayna markii uu ka qabtay taleefoonka
hadalkii ugu bilowday Maxamed xageen kuugu soo diraa lacagta. Maxamed oo faraxsan ayaa u sheegay waxayna u dirtay 8,000 oo dollar oo ka badan lacagtii baahidiisu ahayd markaasi, iyada oo u raacisay inuu inta kale badda kaga gudbo. Nasra may tagin gurigii ay ku nooleed ilaa ay lacagta ka dirtay. Maalinkii labaad ayay gurigii iyada oo diyaar u ah xaal kasta oo ay kala kulanto ayay tagtay, waxayna dafirtay inay lacagta qaaday iyadu. Balse markii saddexaad, laakiin 3 maalmood ay jir dil lagu waday, ayay ugu dambeyn sheegtay lacagtii. Aabaheeda oo meel 150 kiiloomitir ku dhan ah koonfur kaga aadan Burco geel ku dhaqda ayaa loo sheegay in lacag loo haysto gabadha uu dhalay, waxaanuu soo jeediyey in la xidho ama la dilo. Nasra ayaa xabsiga loo gudbiyey iyada oo qof damisan ahi, waxayna xaalkaasi ku jirtay 1 iyo 6 bilood ilaa Maxamed oo isagu safro dhib badan leh kadib galay dalka Norway oo ka soo baxayay lacagtii. Maxamed oo saaxiibkii ugu waramay qaabka uu lacagta ku soo helay ayaa u sheegay inuu ku soo aruuriyay qayb Soomaalida uu noolaa, halka inta kalena uu ka soo jaray noloshiisa. Maxamed oo Nasra oo hore ballan jacayl ula galay ayaa ugu dambeyn toddobaadkani Nasra ku aroosay xaafadda Xamarta ee Burco. Nolosha dhabta ahi ayaa marnaba sidaanay u bedeshmata haddii aad isku daydo inaad u samarto. Markasta nolosha aad ku sugan tahay waxa ay ku tustaa wajiyo cusub, laakiin waxa aad u baahan tahay ama laga rabaa in aad u samarto wajiyadaasi hadba wajiga ay kula timaada, adiguna aad ula dhaqanto. Guusha sidiisaba iskama imaado, laakiin waxay u baahan tahay kufitaan iyo dadaal dheeri ahi. Nasra maanta waa kaasa, waa ay aqal gashay, nolosheedina waa ay ka miro dhashay.